salaamullaahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku soo qaadan doonno jabkii xuma ee ku dhacay Chelsea ilaa iyo taageerayaasha Liverpool oo helay warkii ugu farxadda badnaa oo ay sugayeen. Waa kuwa difaaca ay u dhaqaaqday Manchester City. Qodobada iyo kuwa kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa inta barnaamijkan uu hawada ka baxayo. Balse marka hore ha iloobin inaad like saarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow qalbi furan mahadsanid. Chelsea xilli ciyaareedkan bilowga ah waxay ku dhacday badmadow oo sidata muujada culus umana muuqato in madaxa ay ka soo qaadi doonto iyadoo eersanaysa qorshe xumada madaxdooda suuqa. Koox afka hore ka qaawan ayayna ka kabayaan difaaca dambe. Taana waxay kaliftay inay isku badashay xaawo ay dabka ku shitaan kooxaha yaryar ee Ingiriiska. Dadka aadka u taabacsan kooxda fadhigeeda uu yahay galbeedka London iyagoo la yaabanaa daqaradii xanuunka badnaa oo ay u geysatay Leeds United ayaa haddana waxa u sii raacday in dib u soo laabasho weyn ay ku samaysay Southampton ciyaar ka dhacday gagada Eastmaris oona noqotay halka lagu ogaaday ital la'aanta naadiga macalimo Thomas Tuchel oo dhabanadiisana ay ka muuqanaysay isdhiibid. Inkastoo goolka koobaad uu ku tolay shabaqa kooxdii martida loogu ahaa orodheeraha reer England ee Raheem Sterling oo noqday geesi garab ku waayay kooxda ku ciyaarta gagada Stamford Bridge. Haddana goolkii Chelsea waa tii loogu bedelay laba kale. Mana jirin dhinacay ka wacnay Chelsea oo waxaa fadhiid ahaa difaacooda. Goolkooda wuxuu noqday sida doonta u toogo. Qadkooda dhexe ma wacna oo waxaa loo xiisayba in N'Golo Kante weerarkoodana ma noqonayo mid la isku halayn karo kaliyana waxaaba laga qaadan karaa orodheeraha dhawaan ay ka soo qaateen Man City ee Raheem Sterling. waa ceebowday Chelsea fadeexad weyn ayayna kala soo laabatay gagada caanka ah ee Eastmaris waana guuldaradii labaad oo ay qaabilayso inta uu socdaba xilli ciyaareedkan. Liverpool iyadana wali dunidan waxay ka barbaaraysaa sidii gacanta ay ugu soo dhigi lahayd laacib qadhexe ileen kooxda waxa ku aabsaday musiibooyin dhaawacyo. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Ingiriiskana waxay sheegayaan in dalab lacageed oo gaaraya 20 milyan oo gani ay miiska u saartay kooxda Aston Villa si ay u hesho Douglas Luiz. Wararka waxay intaasi ku darayaan in Douglas Luiz isaga qudhiisaba ay u furan tahay inuu ka tago Villa Park. Atletico Madrid ayaana noqonaysa kooxda kale aadka u doonaysa laacibkan, laakiin haatan wuxuu gacan haatin weyn ka helayaa maamulka xagga suuqa ee kooxda ku ciyaarta gagada Anfield. boqoradii baaska ee Man City waxa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay in heshiis ay meel la dhigto kooxda Borussia Dortmund oo ku aadan saxiixa difaacooda Manuel Akanji. 27 jirkan mustaqbalkiisa kooxda reer Jarmal su'aal ayaa dul taagan kadib markii uu galay 12 bilood ee ugu dambeeyay qandaraaska kooxda Borussia Dortmund uu kula jiro. Waxaana haatan isagana loo siyaalaynayaa inuu soo aadi karo xagga iyo Ingiriiska maadaama ay u sacabtumayso Man City oo qayb ka ah kooxaha ugu halista badan England. waxaa jira kooxo kaloo aad u badan oo xiisaynaya heshiiska laacibka reer Switzerland waxaana qayb ka ah Man United, Arsenal, Juventus iyo Inter Milan. isaga qudhiisaba warar horay u soo baxay waxay sheegayeen inuu doorbidayo ka mid noqoshada kooxda ku ciyaarta tiyaatarka riyada ee Old Trafford. laakiin United haatan waa tii heshay Lisandro Martinez oo ku soo baxay libaax dhaafay. waxaana taa badalkeeda macquul ah inuu u dhaqaajiyo kooxda ay ka wada dhisan yihiin isla magaaladaasi ee Man City. maalmahoodii farxadda ayaa u bilowday taageerayaasha Liverpool kadib markii la xaqiijiyay inuu dib ugu soo laabtay macalimkii goolasha ee Diogo Jota oona noqonaya mid si degdeg ah guryo ugu dhistay qalbiyada mucaashaqiinta kooxda ku ciyaarta gagada lamagalayga ah ee Anfield. Jota ayaa sidoo kale qayb ka ah weerarada ugu halista badan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ka oo saaxiib
dhow la ah shabaqa. halka sidoo kale horay aan kugu sheegay in tababarka Liverpool ay ku soo laabteen Jones iyo Matip Dere. Klopp oo ka hadlayayna xaaladda dhaawacyo ee kooxda ku absaday wuxuu yidhi Diego wuxuuna la tababaran karaa Khamiista, taayoo ka dhigan inuu dib u soo laabtay laacibkii ay wada sugayeen taageerayaasha Liverpool meel kasta oo ay ka joogaan adduunkan. waxaa kaloo duriyadda gobolka Merseyside ay rajaynaysaa horaanta bisha Sebtembar inuu tababarka ku soo laabto laacibka khadka dhexe Thiago Alcantara oo ay taageerayaasha Liverpool u xiiseen baasaskiisii cajiibka ahaa. kooxda ka dhisan magaala madaxda gobolka Catalonia ee Barcelona iyadana waa tii toddobaadkii hore diiwaan gelisay saxiixeedii ugu dambeeyay ee suuqa xagaagan Jules Koundé oo qayb ka ahaa ciyaartoydii sida xun ugu barbartay Real Valladolid ciyaartii ka dhacday Camp Nou oo ay ku haaqeen 4 gool iyo waxba. waxaana uu soo bandhigay sida uu u yahay libaax dhaafay. Koundé oo da'diisu ay tahay 23 sano, Barcelona waxay kala soo wareegtay Seville, laakiin waxay diiwaangelintiisa qaadatay inuu seego labadii ciyaarood ee ugu horeysay horyaalka La Liga Spain. hase yeeshee wuxuu diiwaangelintiisa saamayn xooggan ay ku yeelatay laacib kale oo lagu qasbay Barcelona inay u dirtaba horyaalka heerka saddexaad. sida uu sheegay wariye Tony, maamulka horyaalka La Liga Spain waxay ogolaadeen diiwaangelinta Jules Koundé kadib markii Barcelona ay damaanad qaaday in horyaalka heerka saddexaad ay u dirayso mid ka mid ah ciyaartoyda da'aadda yar dhowaana gacanta ay ku soo dhigeen. laacibka Barcelona ay u bareertay inay u dirto kooxda da'yarta ee ka ciyaarta horyaalka heerka saddexaad ee Spain ayaa noqonaya Pablo Torre oo Barcelona ay kala soo wareegtay kooxda Standard isla markaana yimidba Camp Nou bishii June. horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waxaa si weyn isha loogu hayn doonaa kulanka macallin Mikel Arteta iyo kooxdiisaba ay u socdaan inay soo xareeyaan guushii shanaad oo xiriir ah. Arsenal ma wacan tahay iyo ma wacna gorgorta lagama gali karo tan iyo markii uu bilowday ololahani cusub ee horyaalka Ingiriiska. Arsenal waa kooxda ugu sareysa horyaalka taa oo awood u yeelatay inay soo xareyso ilaa iyo hadda guulo 100% ah. dhinaca kale waxay martiqaad u samayn doontaa kooxda iyadana waqti xaadirkan ay ka kala daadsan tahay ee Aston Villa, ciyaarta oo ka dhici doonta gagada caanka ah ee Emirates. Aston Villa kaliya waxay gaadhay 1 gool 4teedii kulan ee ugu dambeysay horyaalka Ingiriiska iyadoo la kulantay 3 guuldaro kale oo ay kala kulantana Arsenal ma xamili doonaan maamulka Aston Villa ee waxaa dhici karta in shaqada kooxdaba laga eriyo macallin Steven Gerrard ahna halyaygii hore ee Liverpool. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay barnaamijkan ilaa iyo dhammaadkiisa. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.